الله الرحمن الرحيم تنلا سقطة ميل كستو الدنيا كجوكتان كسر وهذا تبين كلا وكبدا برامج كفقدات وررك قبل كبارك الدحية برو شو وكوبي لباتن بيش أبريل سنة كالوا كل يا لباتن كقضب بدا عن إذن هينا ساكا وحكمت نقنطونا maraykanku waxaa muuqanaya in marnaba uusan diyaar u ahayn in uu dib ugu laabto dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe Donald Trump markan waxa uu doonayaa inuu qaato gool diblomaasiyadeed isla markaana uu dib u fasiro dagaalkii lala galay dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran warbixin saddex qaab u kala qaadaysa aragtiyada Maraykanka iyo haddii ay suuragal tahay dagaalka inuu dib ugu laabto ayaan idin la wadaagi doonaa dalka Shiinahana waxa uu bixinayaa damaanad qaad buuxa oo hoose u siinaya dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran kaas oo ku saabsan in aan dib loo soo weerari doonin haddii wada xaajoodka ay aqbalaan isla markaana ay qaataan heshiis dhammaystiran maadaama Maraykanku uu isku hoostuuray dowladdaasi Shiinaha maxay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn oo arrintaasi qaada dhigaya saaka waan kula wadaagi doonaa gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Mohammad Baqir Ghalibafna waxa uu leeyahay marnaba ma qaadan doono heshiis qorqabada oo dalkeena lagu dhibaateynayo dowladda Iran wali waxa lagu baayacayaa 20 bilyan oo dollarka Maraykanka si ay u aqbasho in dal saddexaad loo wareejiyo uraniumka taas oo Maraykanku ay ka dhigayaan hadafka ugu weyn ee heshiis lagu gaari karayo nidaamka gacan ku samayska ah ee bariga dhexe yaalla ee Israa'iilna waxay aad uga baqanayaan heshiiska la gaarayo iyadoo aan waxba la iska oran arrimaha sawaariiqda iyo gantaalada dowladda Iran haddaba haddii heshiis la gaaro iyadoo arrimahan la isla meel dhigan maxay xaaladdu noqon doontaa dowladda Iran waxa la baayacayaa damiirkeeda iyadoo 20 bilyan oo dollarka Maraykanka lagu gorgorin doono in hubka imaag aan iraahdo uraniumka ay hodmisay loo wareejiyo dal saddexaad oo kale isla markaana laga saaro wadankeeda lacagtani meel kale kama imaanayso laakiin waa qarashaadkii looga xayiray adduunka oo dowladda Iran ay lahayd taas waxaa doonaysa dowladda Maraykanka iyadoo Shiinahana iminka uu bixinayo dadaalo dheeraada oo ku saabsan damaanad qaad buuxa oo amni oo la siinayo dowladda Iran warar diblomaasiyadeed oo isu soo taraya ayaa muujinaya suurtagalnimada horumar in laga gaaro wadahadallada u dhaxeeya Maraykanka iyo Iran iyadoo la soo bandhigayo hindiso cusub oo ku saabsan waxa loo yaqaan isweydaarsiga uraniumka sida ay qorayaanba warbaahinta waaweyn sida ay sheegayaan ila diblomaasi ah qorshahan ayaa dhigaya in Iran ay wareejiso kaydkeeda uraniumka sida heerka sare ah loo kobciyay iyadoo taa beddelkeeda la sii daynayo ilaa 20 bilyan oo dollarka Maraykanka hantidaasi oo wadankaasi Iran horey looga xayiray talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu dhisi karayo kalsooni bilow ah oo u gogol xaaraysa heshiis hordhaca sida lagu tilmaamay warkan oo ay qorayaan warbaahinta waaweyn ee gobolka bariga dhexe dhinaca kale Washington ayaa ku adkeysanaysa in siyaasadda cadaadiska dhaqaale ay bilowday ay natiijo dhalinayso halka Tehran ay sheegtay in ay wali gacanta ku hayso meel Maraykanku ay ku gorgoriyaan oo ay ka mid tahay marinka Hormuz dhinaca kale dowladda Shiinaha ayaa si hoose uga dhex muuqata dadaalada dhexdhexaadinta iyadoo loo arko damaanad suuragal ah oo lagu xaqiijin karo baalayri heshiis farsamo oo labada dhinac ay gaari karaan si kastaba ahaatee dalalka qaliijka ayaa muujinaya walaac sii kordhaya iyagoo ku baaqaya in qalad kale oo dhaca ay sababi karayso in dalka Iran oo waxyeello gaarsiiyo baalayri guud ahaanba ee wadamada qaliijka oo horey ugu dhibaatooday dagaaladii la gaaray dhinaca kale waxaa muuqanaya in marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz wali uu wajahayo cadaadis kale oo dheeraada 12 saac ee ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera oo xiganaya wakaaladaha wararka Iran waxa uu leeyahay 3 markab oo kaliya ayaa ka gudubtay dhamaantoodna waxa ay ka amar qaateen dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran wararka laga helayo wakaaladda wararka ee gacansaarka la leh Tehran ee Tasniim ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqa maraakiibta marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz uu si weyn hadda hoos ugu sii dhacayo sida ay muujinayaan xogta la socodka maraakiibta kaliya 3 markab ayaa ka gudbay
marinkaasi Hormuz muddo 12 saacadood ah. Tanina waxay keenaysaa in dhaqaalaha adduunka uu ku yeesho saameyn aad u ballaaran marka la fiiriyo sida ay hadda wax u soconayaan. gudoomiyaha baarlamaanka waddanka Iiraan ahaana hogaamiyihii wadaxaajoodka ee Islaamabad Maxamed Qalibaf ayaa ku waramaya in uusan aqbali doonin dalkiisa in laga qaado buu yiri garaadka iyo waliba in tooqoodu ay ku soo bandhigi doonaan waxa ay jecel yihiin oo ku saabsan guud ahaanba horumarka oo aan laga qaadi karin ikhtiyaaraadka sida uu hadalka u dhigay. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay isku diyaarinayeen in ay soo bandhigaan xeelado cusub oo ku saabsan goobta dagaalka, taas uu ku tilmaamay in ay tahay jawaab istiraatiiji ah oo ka dhana cadaadiska sii kordhaya ee waddankiisa la saarayo. Qalibaf ayaa sidoo kale ku eedeyn u jeediya madaxweyne Trump isagoo sheegay in uu isku dayayo iyadoo la marayo buu yiri cunaqabateyn iyo tallaabooyin military in miiska wadaxaajoodka uu ku bedelo mid lagu qasbo dalka Iiraan in ay isdhiibto. taasina waa riya aan socon karin oo waqti tagay laga soo qaadan karayo. ma aqbalayna wada hadal lala galo hanjabaad iyo cadaadis lagu hayo dalka Iiraan, ayuu yiri isagoo ku sii adkeeyay in Iiraan ay difaaci doonto madax banaanideeda iyo danaheeda qaran ee gaarka ah. hadalladan ayaa imaanaya xilli xiisaduhu ay sii kordhayaan, dhinacyadana ay isweydaarsanayaan cadaadisyo kala duwan oo aad u xoog badan sida ka muuqanaysa dhinacyada hadda ishaya. nidaamka gacan ku samayska ah ee Israa'iil ee bariga dhexe yaalana waxa ay hadda dareemayaan cabsi iyo walbahaar xoog leh kadib markii la ogaaday in dalka Mareykanka aanu wax ikhtiyaar ah ka lahayn gantaalaha baalistiga ah ee dowladda Iiraan gacanteeda ku jira. taa beddelkeedana uu ka fakarayo Trump heshiis nabadeed oo la gaaro iyo in xabad joojintu ay noqoto mid heshiis rasmi ah isku beddesha. Israa'iil ayaa muujinaysa walaac sii kordhaya oo ku saabsan maqnaashiyaha arrinta gantaalaha baalistiga wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo dalka Iiraan. sida ay baahisay idaacadda ciidamada ee nidaamkaasi, mas'uul sare ayaa oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in wada hadallada socda ay gabi ahaantoodba ka hadlin barnaamijka gantaalaha ee Iiraan. arrintaas waxa uu ku tilmaamay mid halisteeda leh oo mustaqbalka saameyn karaysa gobolka bariga dhexe. mas-uulkan ayaa ka digay in haddii qodobkan aan lagu darin heshiis kasta oo iman kara buu yidhi ay suuragal noqon karaan dhowr sano gudahood in dib loogu laabto weerar kale islamarkaana la bartilmaamayso xarumo kale oo muhiim ah oo ku yaala bariga dhexe. Israa'iil ayaa muddo dheer ku adkaysanaysay in heshiis kasta oo lala gaara Iiraan uu si cad u xadidayo barnaamijka gantaalaha baalistiga maadaama ay u aragto khatar toos ah oo ku wajahan amnigeeda qaranka. arrintan ayaa imaanaysa xilli diblomaasiyadda hadda ay gaartay meeshii ugu adkayd, cabsi ballaaranna ay sii kordhayso. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan madaxweynaha dalka Mareykanka in marnaba uusan aqbalsanayn in dib loogu laaban karayo dagaalka gobolka bariga dhexe, laakiin hadda la jooga xilligii la qaadan lahaa weji nabadeed iyadoo Mareykanku aanu ku fashilmin fagaaraha dagaalka ee gobolka bariga dhexe. warar soo baxaya oo laga helaya ila Mareykan ayaa sheegaya in madaxweyne Trump uu ka fiirsanayo dhowr xaaladood oo la xiriirta suurtagalnimada in ay dib u bilaabaan howlgal military iyadoo xiisadda u dhaxaysa Trump iyo Iiraan ay weli cirka isku sii shareerayso. sida uu sheegay sarkaal Mareykan oo la hadlay warbaahinta caalamiga ah, wada hadallada hadda socda ayaa lagu tilmaamay inay galeen marxaladii labaad ee xiisadda, halka marxaladda saddexaad ay noqon karayso mid u dhaxaysa duqeymo dheeraada ama heshiis nabadeed, iyadoo go'aamada ugu dambeeya ay ku xirnaan doonaan baa la yidhi dhinaca waddanka Iiraan. sarkaalku waxa uu sidoo kale sheegay in maamulka Trump uu ka digayo in Iiraan ay sii wado baa la yidhi xakamaynta muranka istiraatiijiga ah ee Hormuz, islamarkaana cadaadis dhaqaale ee Mareykanka uu sii wiiqayo awoodda dhaqaale ee dalka Mareykanku ay saareen dalkaasi Iiraan. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in Mareykanka weli diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo arrinta la xiriirta uraniumka, taas oo ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee miiska wada xaajoodka yaala.
warbixintu waxay intaa ku daraysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Iiraan ka jirta ay adkeynayso in la fahmo cidda sida dhabta u maamulaysa go'aanada kama dambaysta ah. sidoo kale ilo diblomaasi ah oo Bakistaani ah ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Shahbaz Sharif uu ku howlan yahay dadaallo lagu kordhinayo xabad joojinta labada dhinac ah waqtiga yar hadda ka haray, iyadoo loo soo jeediyay in la kordhiyo muddo 2 toddobaad oo kale oo dheeraad ah. ilaa iyo hadda ma jiraan wax wara oo dhammaystiran oo ka yimi dhinaca waddanka Mareykanka, iyadoo Trump uu shalay sheegay in haba yaraatee uusan aqbali karin in waqti kale oo dheeraad ah uu ku daro xabad joojinta. subax wanaagsan akhyaarta nala socota ay qodobadan ayaan ku faaqidaya barnaamijkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ay qorayaan wakaaladaha wararka waaweyn ee gobolka Bariga Dhexe ee ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda iyo xiisadda sii kordhaysa ee gobolkaasi Bariga Dhexe.